ka dhacday aanoo qardha jooga islaan firshada islaamaha dhigta firshooyinka mataqaan firshooyinka alaabta hadda sida bacad lahayn idinku hadda afkaa joogtaan waa bacad leh firshaa la oran jiray gaariyool waddanka lagama isticmaali jiray cawba hal cawa oo dhimbiil la yidhahdo islaamaha waxay ku soo qaadan jireen alaab waxay dhigan jireen dawladda hoose ma garatay meel madcaara galabtiyadoo caraabaysa baa waxaa ka siibatay macawis wiil wahaabiya oo baa macawstii qaatay wuu ku soo labistay salaatii subaxdii bay alaabteedii way carruuday subaxdii bay soo noqotay alaabtii bay waxay damacday waxaad dhigataa madcaarkii mise macawis baa maqan magaaladu way yaray dadkuna labiskiisu waayada oo iska yaraa waxay ku aragtay macawistii wiil sita way dacwaysay waa la xiray macawis hadda faham 3 bilood baa lagu xukumay anigu markaa waa xirnahay oo shil yar oo xoogaa baan waxaa lagu xiray 76 iyo 7 baa la xiray wiilkii wuxuu ka baxsaday jeelka macawis saxday bil markuu xirnaa 3 bilood baa lagu xukumay bil markuu xirnaa buu baxsaday waa la soo qabtay wiilkii markuu adigu 5 bilood naga maqnaa baa la soo qabtay askari reer boosodnimo ahaa markii dambe la oran jiray Yuusuf Obi oo reer Saalaxa baa soo qabtay 3 sano baa lagu xukumay baxsaday maantana ninkii dadka laayay baa suuqa jooga waxyaalaha la yaab kale maxaa is leedahay waxaan hadda arkayaa dawlad soo iftiimaysa oo dalka Soomaaliya sidii anigu markaan hadda xusuusto dawladeedii hore dawladda u eg oo iyadiiba ahba markaan eego caalamka akhbaaraadka firi ama shacabka hadda adduunka Soomaaliya markaan firiyo riyaaqa 100% afar mucaarad oo qabqablaha oo cilla taagan oo dadka baabiye ma hay dadka kale waxay arkaan inay dawlad iftiimi soo socsoqayso oo dalka ku soo socoto adiga cali ahaan maxaa aaminsantahay waxaan aaminsanahay inay dawladdaas dawlad sax tahay waayo dawladdu waxa noqday jacaylka shacabkuna waxay jecel yihiin dawladda yani ifan markaan anigu hadda iraado anigu hadda 2015 ama 2017 waxaan aaminsanahay waxaan arkay dadka shacabka inay aaminsan yihiin reer walba qabqablihiisa aaminsan laakiin maanta waxaan arkay in qabqablihii laga baxay oo reer walba u jeedo hanqalka u taagayo koonfur iyo dawladda Soomaaliyeed oo nin walba leeyahay xagee soo socotaa ama dhalinyarada la isweydiinayo dadka 180 waxay soo gaadhay qardhayba soo gaadhay aba soo socotaa marka deegaanada aan joogno ruuxeeda mashruuciga ka dhagax dhigtay oo deegaanada aan joogo dhahar way ka dhagax dhigtay wacyo way ka dhigtay ufayn waa ka dhagax dhigtay inshallah waan rajaynaynaa anagu dawladdaas aan rajaynaynaa anagu inta burburi lahayn oo dhalinyarada mustaqbalka laga ciyaar lahaa waa la dhaafay baan u jeednaa anagu rajadaas waxa sheegtay cali ka warantay wadoone in rajo soo iftiintay maanta oo dawladnimadii aad soo joogteen mid la mid ay soo ifbaxday marka see iftiinka yarka lagu ilaalin karaa way kula tahay midnaan israac Soomaaliyeed aqli saliima kii hore la qasaalo kii hore dadka ku jiray waa si qasaalmaya waayo dadku burburkana iyaga keenay ilaahay xaqiisa ka hatay dawladdii hore taa ahaydna iyaga keenay tii hore taa hadda dawladdii hore 22 sano waddanka safaynaysay ilaahay baa keenay waxa ka horeeyay dawladda musuqmaasuqa marka waxaan leenahay in waxaan u arkaa in hadda musuqmaasuqi dhamaanayo sidoo u dhamaaday kii hore oo 1925 oo kale waxaan inay dhamaadeen baan arkaan aad baa maashantaa hadiya ama dhalinyarada maanta ay moodayaan qori 30 qaada iyo reerkooda waa reer